wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland ayaa baabuur loogu talagalay degmada Garbadadar wareejiyay maamulka degmada Garbadadar baabuurkan oo madaxweyne ku-xigeenku injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici looguna talagalay in maamulka degmada Garbadadar ku fuliyaan adeegyada waxqabad ee bulshada deegaankaasi ku nool waxaana deeqdaasi ka hadlay maayirka degmada Garbadadar Cabdullaahi Cilmi Kalluunle iyo odayaasha deegaanka Garbadadar waxayna u mahad celiyeen xukuumadda Somaliland deeqdan waxtar kale ay soo gaarsiiyeen hay'adda iyo gaariga la keenay ee madaxweyne ku-xigeenku keenay aad iyo aadna ugu mahadsan yahay dhammaan dadweynaha Garbadadar deganna way mahadnaqayaan wasiirka warfaafinta ku wareejiyay bixiyay Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici anaguna aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno anoo ku hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye degmada Garbadadar waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaana u mahadnaqaynaa baabuurka uu siiyay gudoomiyaha degmada Garbadadar marka hore marka labaad waxaan mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo noogu deeqay gaari xaajiyada oo adeeg degmada Garbadadar waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland Guuleed Cabdi Xuseen ayaa tilmaamay Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo hore degmadan u soo gaarsiiyay gaari ambalaasa kaasoo bulshada aad ugu adeega maanta waxa halkan muhiimadeedu noo tahay iyadoo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici uu ugu deeqay degmadan Garbadadar gudoomiyaha degmada gaari xaajiyad ah taasoo bulshada u adeegi doonta marka halkan waxaan ku wareejinayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland gaarigii uu ugu deeqay degmada Garbadadar kaasoo ku wareejinayo gudoomiyaha Garbadadar Master Cabdi marka si kastaba ahaatee wasiir ku-xigeenku kormeer hawleed ku soo maray deegaanada lagu haya gargaara garaaca Cadar Caafi TV-ga qaranka Burma.